hay'adda ICRC laanqeyrta cas fadhigeedu yahay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ayaa deeq raashina soo gaarsiisay dadka danyarta ku nool degmada Ceegaag. Waxa deeqdaas ka faa'iideystay 200 oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ku nool degmadaasi. hay'adan oo ay horkacayeen mas'uuliyiin ka soo jeeda degmada Ceegaag kuwaas oo kala ah agaasimaha guud ee warfaafinta Puntland Mawlid Abuukar Abke iyo agaasima Axmed Xariir Gaas. Haddaba dadka danyarta ku nool degmada Ceegaag ayaa u mahad celiyay mas'uuliyiinta iyo hay'adda ICRC waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidoo kale waxa isaguna u mahad celiyay hay'adda soo taakuleysay dadka tabaalaysan gudoomiyaha degmada Ceegaag Axmed Ciise Cawil. dhanka kale agaasimayaashu waxay kormeer ku tageen deegaanada kala ah Urfadhi, Daarusalaam, Qocondhaale iyo dugsiga hoose dhexe ee degmada Ceegaag iyagoona u kurgalay xaaladda guud ee deegaanadaasi. xubnahan ayaa wada hadallo la yeeshay odayaasha iyo waxgaradka degmada Ceegaag. bishaas ee noo keentay markii hore noo keentay lacagta markii dambana noo keentay raashinka aan u mahad celinana anagoo degmada Ceegaag nabadgelyo baanu ku soo dhaweynana iyo ceeb la'aan waanu u hambalyeynana waxaanu dooranaa laanqeyrta cas hay'adaas laanqeyrta cas soo dhaweynana hanagu soo socoto hay'adda ICRC aad baan ugu mahad celinayna maanta noogu timid degmada Ceegaag aad baan ugu mahad celinayaa intaas oo bilaadana oo maanta barakacayaan oo maanta aad raashin ugu keentay markii horena ay lacag si aad baan hay'adda ugu mahad celinay kullu shakhsi ahaantii Filibiin ahaan aad baan ugu mahad celinayaa ICRC baan raashinka noo keentay waa ku faraxnay waxa weeyaan Ilaahay baa noogu soo dhiibay waxaan joognaa waa Ceegaag bay keeneen 200 qoys baa raashinka loo qaybiyay waa ku faraxsanahay maaha markii horeysay xubno ka socda maamulka Puntland ay soo gaadhaan degmada Ceegaag iyo tuulooyinka hoos yimaada. Libaan Axmed Ciise Libaan Qaran.